isbeddelka nolosha aad doonaysid wuxuu ka bilowdaa fakarkaaga. waxa keenay in aad kuba fakartid inaad isbeddeshidna dabcan waa kuma qanacsanid qaabka noloshaadu u taalo. waxaad doonaysaa in aad tallaabo horay u qaadid oo meesha aad taagan tahay maanta hadday dhaqaale tahay hadday cilmi tahay inaad horay uga socotid baad rabtaa. laakiin in fara badan oo dadka ka mid a waxa keenay inay horumarka gaari kari waayaan waa sabab kasta oo aysan macquul u ahayn isbeddelka uu sameeyaa in uu suurto galayo oo uu noqonayo mid naftiisa wax tara oo natiijadiisa dhaqso loo arko ayuusanba aaminsanayn qofku. waxaad ogaataa ragga iyo dumarka aan naftooda kuba kalsoonayn inay cusboonaysiin karaan, wax ka beddeli karaan, horumar ay samayn karaan. waa kuwa inta badan markay damcaan inay guursadaan aan kalsoonida ku lahayn qofka ay doonayaan inay mustaqbal la wadaagaan, oo madax xanuunka socda ah, oo aan waxba la fahansiin karin, oo tooda keliya ay la saxsan tahay. qof noocaasa ma aragtay oo markaad wax u sharaxdid waxba kaama qaadanayo, markaad damacdina wax fahansiisid waxba ma fahmayo. qaabka isagu uu rabo haddaad wax u wadidna ood ku kala tegaysaan meesha. maxaa yeelay mar walba waxaa naftooda ka buuxda kalsooni xumo, taasaana waxay keentay inuu noqdo qof mar walba saadaal xun oo saadaashiisa xumi ay ka awood badisay. dhibaatadu xaggay ka bilaabatay? isbeddelka uu aaminsan yahay inuu imaan karo ayaa aad u xun. wuxuu aaminsan yahay qofkan haddii aadan iska ilaalin mar walba maalin uunbuu ku khiyaani doonaa, maalin uunbuu meel xun kaa tuuri doonaa, maalin buu niyadda kaa jebin doonaa. kalsooni xumadaa naftiisa ku duugan ayaa sabab waxay u noqotay markaa in qofka mustaqbalka dhow ay doonayaan inay isguursadaan ama ay rajada kale leeyihiin in uu kaba baqaba qofkan. maxaa yeelay waa qof naftiisa aan ku kalsoonayn. ogowna noloshaadu heerka maanta ay joogto isbeddello fara badan oo ku dhacay baa soo gaarsiiyey, ama mid xun ha noqdo ama mid wanaagsan ha noqdo. laakiin xaqiiqadu waxay tahay isbeddel aad adigu aaminsanayd oo ku kalsoonayd oo ku qanacsanayd baa heerka maanta ay joogto keenay. haddaba beddel fakarkaad isbeddelka ka qabtid oo dhis kalsoonida naftaada. u oggolow isbeddelku inuu noloshaada ku sameeyo saamaynta aad adigu u baahan tahay si aad ugu noolaatid nolosha aad ku riyoonaysid.